5 arrimood oo haddii aad iska dayso ay lacag badani kuu dhigmayso. Waqtiyadan dambe oo ay dunidu ku soo badanayaan dhibaatooyinka dhaqaale, waxaa soo kordhay in xeeldheerayaasha dhaqaaluhu ay dadka iyo shirkadahaba siiyaan talooyin dhaqaale oo ka anfici kara badbaadista mowjadaha aan fadhiyin ee dhaqaalaha iyo kaydsiga lacago ugu filan in ay kayd samaystaan. Qormadan aynu ka soo xignay Daryeel Magazine ayaanu ku soo koobaynaa muuqaalkan oo aad ka daawanaysaan kanaalka ka hadla arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Gal Ganacsi. Qodobka 1. Guri qarashkiisu yar yahay. Sida caadiga ah, kirada guryuhu waxa ay u kala qiimo sareysaa sida ay hadba u kala duwan tahay xaafadda uu guriga ku yaalo iyo inta uu la eg yahay ama qaabka uu u dhisan yahay. Muhiim ma aha in aad noloshaada ku bilowdo guri ay kiradiisu aad u badan tahay ama in adiga oo weli noloshaada salka u dhigin in aad iibsato ama dhisato guri aad u weyn. Qodobka 2. Cuntada wadaniga ahi waa u muhiim dhaqaalahaaga. Waxaa fiican in qofku naftiisa baro in cuntadiisa uu gurigiisa ku samaysto oo aanu baran cuntooyinka hoteelada oo qiimahoodu sareeyo. Waxa aad guriga ku samaysan kartaa cuntooyin nafaqo ahaan isku dheelitiran kana waxtar badan cuntada hoteelada oo laga yaabo in waxa kaliya ee ay ku fiican tahay uu yahay in dhadhankeedu dadka soo jiidanayo. Qodobka 3. Gaadiidka. Qasab kuguma aha in aad gaari qaaliya iibsato iyo xitaa in aad gaari wadato oo aad naftaada saarto culayska kharashaadka gaadhiga ku baxaya ee shidaalka iyo dayactirku ka mid yahay. In aad noloshaada mustaqbalkeeda muuqda xalinayso waxaa kugu filan in aad gaadhiga ugu qiimaha jaban uguna kharashka yar iibsato. Waxaa ka sii fiican in aad barato oo aad adeegsato gaadiidka dadweynaha. Ceeb ma aha in qoysaska dariskaaga ah aad kula heshiiso in aad hal gaadhi u wada isticmaashaan in carruurta iskuulka lagu geeyo ama in howlaha la wadaagi karo oo dhan hal gaadhi aad ku shiraakowdaan. Qodobka 4. Yaree kharashka layrka. Waxa aad ku xisaabtantaa in kharashka kaaga baxa layrka, gaaska, cunto karinta iyo qalabka kale ee korontada u baahani uu ka mid yahay kharashaadka ugu dhibka badan ee dakhligaaga dhiigbaxa ku keenaya adiga oo aan is dareemin. Ku dadaal in aad yareyso isticmaalka qalabka korontada ku shaqeeya sida in aad habeenkii iska damiso layrarka iyo in qolalka aan la isticmaalaynin uu layrarkooda iyo qaboojiyaashoodu dansanaadaan. Qodobka 5 ee ugu dambeeya waa dhaqamo kharash badan ku gelinaya. Caadada ama habdhaqankaaga nololeed ayaa fure u ah xaddi kharash ee ay tahay in aad isticmaasho. Tusaale ahaan, haddii aad sigaar cabto oo maalin kasta aad baakad iibsato ama aad balwad leedahay oo maalin kasta caado ay ku tahay in aad $10 ku qaysho, waxa ay kor u qaadaysaa kharashka maalinlaha ah ee kaa baxa. Labadan kaliya ma aha ee balwaduhu waa ay badan yihiin. Waxaa iyaguna jira hab nololeedyo caado noqda oo kharash badan. Waxaa ka mid ah in aad iska kiraysato xafiis aanad hawl ku qabanayn oo laydh iyo kiro ay kugu socdaan, ama in aad toddobaad kasta dalxiis iyo layr si aad qoyskaaga u wado. Caado ha ka dhigan in wax kasta oo aad iibsigiisa u baahato aad ka adeegato meheradaha aadka u qaaliga ah ee magaca ku leh deegaankaaga. Tusaale ahaan, ma jiro wax beeninaya in dhar ku qanciya aad ka heli karto meherado qiimahoodu aad u jaban yihiin. Talooyinkan oo aad raacdo waxa ay ka mid yihiin arrimaha ay khubaradu xaqiijiyeen in ay si weyn u dhimayaan kharashkaaga macno darrada ah ee joogto kaaga baxa. Taasina ay fursad kuu siinayso in aad lacag dhigan karto si aad noloshaada guud ugu hormariso ama ugu badbaadiso xilliga dhaqaale yaraantu jirto ama kharash lagama maarmaan ah oo weyn uu kugu soo baxo.